aqoontii waxbarashada tayada sare halka aad ugu tegilayd aan ku tilmaamay kaalay aan ku tilmaamay bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa maxamed maxamuud ismaan Dean Faculty of Computer and Informatics jaamacadda Timacadda waxaan si guud ugu hambaleynayaa ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadka guuleystay imtixaankii dugsiyada sare si gaar ah waxaan ugu hambaleynayaa ardayda gobolka Gabiley imtixaanka natiijada fiican ka soo hooyay dugsiyada guud ee gobolka waxaan doonayaa markaas in aan maanta halkan ku cilaamino kulliyadaha cusub ma departmentada cusub ee kulliyadu ay soo kordhisay kulliyada Computer and Informatics-ka si guud hore waxa jaamacadda uga bixi jiray faraacideeda kala duwan software engineering-ka iyo ICT-ga sanadka markaa waxaan soo kordhinay computer science degree iyo sidoo kale waxaan doonayaa inaan bilowno hadii la hay'adaahdo ICT diploma ah oo bixi doona classada evening-ka weekend-iska markaas bixi doona khamiista iyo jimcaha gelinka dambe iyo habeenkii markaas bixi doona oo jaamacadda faraceeda Gabiley uu si gaar ah u soo kordhiyay kaasoo doonayay inay ka faa'iideystaan markaas dadka shaqeeya iyo dadka digriyo hore haystay ee doonayna aqoontoodii si kordhiyaan maadaama oo cilmiga tiknoolajiyada maanta goobaha shaqo iyo businessyada looga maarmeyn marka waxaan doonayaa inaan idinku hambalyeeno inaan ka faa'iideysataan fursadda quruxda badan ee jaamacaddu idin fidinayso ee diploma ICT-ya oo waliba baxay waqti munaasib oo evening iyo afternoon labadaba markaas taas waa taa sida guud waxaan doonayaa marka ardayda regular degree ka dhiganaysa kala duwan ee gobolka Gabiley guud ahaan Soomaaliland inaan markaas kulliyada aan ugu bashaareynay inay soo kordhisay department cusub oo hore waxa uu bixi jiray software engineering information communication technology ama ICT sanadkan waxaan soo kordhinay computer science marka taas iyadana waxaan doonayaa markaas inaan si guud u gaarsiiyo ardayda sanadka ka soo baxay jaamacadaha kala duwan waxyaabaha gaarka ah ee jaamacaddu markaas jaamacadaha kale dalka ama gobolka ay dheertay waxa kamid ah jaamacaddu ay leedahay lab si casri ah oo qalabeysan kaasi oo loogu talagalay ardaydu inay markaas ay ku qaataan classka practicalka ee u baahan markaas inuu ardayga wixii si taabasho ama practical ah uu qaato maadaama ardaydu wada awoodeen inay markaas computer gaar ah ay soo wada iibsadaan oo qofkii laptop uu sito ama PC xaafadeed markasta oo ku xisaabtamo marka jaamacaddu waxay si gaar ah uga caawisaa in ardaydu class labkaas uu ku qaato si casri ah oo qalabeysan oo isku filan oo marka qaadkiisa la eego numberka ardayda fadhiisan karaya serveradiisu xadiga ay qaadayaan iyo qaabka casriga ee markaas computeradaasi marka ay u shaqeynayaanba aan ugu bashaareeyay jaamacaddu ay saas marka u qalabeysan tahay oo u dhameystiran yahay qalabkeega cilmigeega kulliyada ICT waa kulliyad qadiimi ah oo jaamacadda waqtigii la bilaabay ilaa imika kulliyadaha lagu majeerto kamid ah sidoo kale waxa ay dheertay markaas in ardayda mostly gobolka shaqeeya ay ICT-ga kulliyada ka wada bixin dhamaantood taasoo marka xafiis walba oo dawladeed mid bareefada baad ugu galisid arday kulliyadaas markaas ka baxay jaamacadda kambaskeeda guud markaas ee Gabiley ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh